waa ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad igu soo dhaweyseen galmudug magaala madaxdiisa Dhuusamareeb marka koowaad maanta farxad ay ii tahay inaan idin kala soo qayb galo kulanka golaha wasiirada ee galmudug aan ka dhageysto warbixintii hadda ugu dambeysay oo ahayd uu soo jeediyay wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka una kaga hadlaya abaaraha baan ee dalka saameeyay gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug runtii saad la socotaan dalka abaaro baan ayaa ka jiro oo aan maanta indhahiga ku soo arkay iyo shalayba markaan halkan imaanayay dowlad goboleedka galmudug iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya saad la socotiin xilligii roobabka dib ayay u dhaceen oo xilligan roobab ayaa la sugi jiray xilligan oo kale oo bisha November ay tahay maadaama xilligii roobku dib u dhacay intii alla waa gooni laakiin midda xisaabta bini'aadanka ayaa noo sheegaysa bishan November ah iyo December oo ku xigto oo ku sii darsoomi doonto kadibna ay ku xigto 3 bilood oo jiilaalka ah January February March oo iyadana ay ka sii daran tahay oo runtii u eg masiibo nagu soo socoto Ilaahay inuu noo fududeeyo oo raxmadiisa nasiyan la ka rajeynayna laakiin midda bini'aadanka xisaabta bini'aadanka waxay tusaysaa in 5 bilood ay noqonayso 5 bilood oo jiilaal dheer ah daba dheer ah haddaanan marka hadda laga hortagin loo tabaabushaysan sidaan hadda ka hadlayno iyo waxaan qiyaasayno way ka sii badanaysaa saadarteed waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed halkan abiil uga soo jeediyo in loo baahan yahay gurmad degdeg ah oo ku aadan sidii looga qayb qaadan lahaa samafalka ay wadato dhibaatooyinka ay wataan abaaraha xilliyada soo socdo bilaha soo socday nagu soo aadan waxaan rabaa inaan halkan uga soo jeediyo beesha caalamka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan gudaha iyo dibadba inay u soo gurmadaan dadkoodii iyo dalkoodii kana badbaadiyaan abaarta dhibka badan wadata ee nagu soo fool leh insha Allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa gacantiisa na deeqdo inuu ummadiisa ilna xariisa ku eego insha Allah saadarteed waxaan mar kale ku soo celinayaa waxa loo baahan yahay gurmad degdeg ah sida looga hortagi lahaa abaarahan looga hortagi lahaa inay dad badan ka barakacaan goobahoodii iyagoo raadinaya biyo iyo baadba marka waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh